بسم الله الرحمن الرحيم waxaan kula kulmay magaalada Bern Abuukar Muude Cabdi oo ahaa xildhibaanadii ugu horeeyay ee Soomaaliya 1964 waxaan ka wareysan doonaa Abuukar Muude Cabdi waxyaabahii hore iyo hadan ah gudoomiyaha Rajo maxay tahay Rajo asana oo shaqeeyo waxa kale oo aan oo la fadhiyo garabkiisa fadhiyo دكتور محمود محمود علي او قدوميها الهداية هيربل ميديكال سنتر اصلا waxaa ka wareysan doonaa waxa uu yimid magaalada Bern Switzerland kusoo dhaw warbaahinta Abuukar Muude Cabdi kusoo dhaw warbaahinta Somali Swiss diaspora way balaaran tahay warbaahinta website leedahay radio leedahay laakiin waxay tahay dhamaanteed Somali Swiss diaspora kusoo dhaw ku dhawahay bismillaahir rahmaanir rahiim sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in wa runta ku dhawahay daacadan waxaana jirto inaan aniga ahaa waa runta xildhibaanayaalkii 1964 lagu soo doortay oo si doorasho hore ku soo galay baarlamaanka Soomaaliya haddana dalka Switzerland joogaa waxaan ahay gudoomiyaha ururka Rajo oo xagga samafalka iyo Rajo Integration Peace and Development for Somalia isla markaasna waxaan ahay gudoomiyaha shirkadda International Diaspora Remittance oo ay shirkadda xawaalada lacagaha maaragtay u dirto diaspora international oo dhan oo ka gidisan laakiin xawaaladalka caadiga ah laakiin tan waxay u shaqeysaa systemka Western Union oo kale waa shirkad sharciyeysan kuna shaqeyso hab casri dadka diiwaangeysan dalka Switzerland ayna maaragtay garab siiso dowladda Switzerland si loogu fududeeyo arriyaalaha xawaalada si sharciyeysan oo transparent iyo legality ilo sharciyeysan oo maaragtay si cadaan u shaqeynayso marka taasna yaan ka ahay magaciisi gudoomiye halkaana waxaa noogu yimid aan martiqaad u fidinay دكتور محمد علي oo الهداية نيروبي isagaasoo maaragtay barterna le si aan maaragtay aga shaqeyno West Africa taasoo hadda mar dhow sharci aan ka helnay shirkadayna ay sharci ka heshay taasoo haddana isla markaasna haddana isagana yimid dalka Saudi Arabia halkaasoo idana aan xafiiska furi rabno iyo Yemen taasoo asaga u xil saarnaa oo asaga arinteedaasna u yimid haddana nagu yimid halka martiqaadka aan u fidinay iyo sidaasoo daraadeed asagana inta kale sharxi doono وبالله التوفيق انت ساوجرت ما كبقى دونو وربحنت هذا اما وريسي هذا هل ساعة هل دقيقة ان شاء الله وحنرجي دونا انا وريسيو تان كده دير ان كلية لدونا مستقبلك وكسب سن تاريخ دي سوماليا iyo sida ka sheekaysanay ba taariikhdii xildhibaanadii xilliga jiray iyo xornimadii waqti dheer baan wada qaadan doonaa insha Allah taas diyaaran ku walahay inaan ku siiyo maaragtay warbixin intii aniga aan ka ogaa iyo intaan maaragtay ka soo gaaray wila khaas ahaan waxaan jeclahay warbixin dheer inaan ka bixiyo ra'iisul wasaarihii dhintay saaxiibkay Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo geesigii ahaa maaragtay halgeygii ahaa soo halgamihii ahaa maaragtay cadaalada jeclaha horumarka Soomaali iyo maaragtay cadaaladeeda asagaasna war dheer aan niga si doona insha Allah markii aan noqoto assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh wa alaykum asalaam wa rahmatullahi haddana waxaan ku soo dhaweynayaa hogaamiyaha xarunta Al-Hidaya Medical Center oo haddana ka shaqeeya barnaamij kale oo international ah oo Western Union asiga ayaa nooga shaqeeya barnaamijkaas ku soo dhawow Sheekh Maxamuud wa salaamada baada Somali Swiss diaspora عادي أهلا وسلامتين الحمد لله ورتا
meeshaan waasoo saaxiibkay sheegay oo nabadoonkayna uu sheegay odagayna uu sheegay casuumitaan ayaa uu noo fidiyey inta markaas waxaan kusoo gaarnay anigii saaxiibkii cabdullaahi sanadkii tuuto alifkii barnaamijkoodii runtii markaas waxaa ka jirtay waxaa ii keenay marka hore nin la yidhaahdo axmed dhicisow ayaan nairobi ku kulanay ka tashanay barnaamijkan inuu u baahan yahay fikir dheeraad ah in fikir iyo waqti iyo imtixaanaad badanba la siiyo runtii dad badan oo saaxiibaday oo arrimahan ka shaqeynayaan la tashtay aniga cabdullaahi ayaa soo baxnay wixii ay sheegayeen ayaan aragnay runtii dowladda swiss ayaa waxay siisay laysin dhahaayo waxaa waaye xataa ma ahan kaliya waxawaaye waxaa la siiyey laysin ah money transaction and professional financing service markii aan waxyaabihii aan ka qaaday oon kenya aan geeyey markii la arkay way la cajibeen way ka diiwaan gelinay sidoo kale hadda sacuudi arabiya yemen dubay marka waa orax soo baxday oo hadda alxamdulilah waxaan dhihi karaa oo faafayso marka taasaan ugu badneed horta waxaan u imid hadda inta haddana wiigaan waxaan ku naqnay hadduu ilahi raha sacuudiga oo arrintii oo aan hadda ka sheekeynayay in aan sii xoojino oon sii diyaar garayno howlihii aan sii si aan u fur lahayn barnaamijka ka waran nin dhaktara baa aheeday oo xarun weyn kule nairobi iyo meelo kala duwan oo adduunka ah inta laga furayo barnaamijkaas asiga ma midkaan baa ku bedesha mase maya taas ma isku socotaa laakiin maadaama la ii arka oo saaxiibkay abubakar iyo axmed dhiciso ii arkeen oday dhaqdhaqaaq badan oo ummadana soomaaliyeed sumcad ku leh alxamdulilah markaas waxaa le rashiid maxamuud daawada kale maana tanna waxay u baahan tahay juhdi kale intii aad socoto juhdigan geli waxaan joogay sanadkii hore oo shirki oo bruxelles oo new dealka in aan safiirkeena qaaliga ahay cali saciid iyo dad badan iyo waa issoo fahamnay iyo haweeneyda u qaabilsan holland baarlamaanadka dad badan aan lasoo kulmay arrinna hadda shalay waxaa la siiyood warqadeeda soo bandhigi doontaan in aan aniga power for attorney oo abubakar mudday oo socda aan ahaa aniga hadda qaab ahaantii shaqada xaggeeda marka alxamdulilah waa tillaabooyin oo hor leh oo dadka aysan fahmin soomaalida waxay u taqaanaan 100 200 meelaan ka aroor laakiin tan way ka weyn tahay waa money transaction and professional financing service runtii aanu ehel uma ahayn laakiin hadda qaab ahaan swiss waxay wadaa barnaamij ay ku horumarinayso inay ku caawiso diasporada caalamka oo dhan international diaspora remittance waa wixii swissna waa shaqadeeda waa la wada yaqaana waa lacag ka shaqeyn marka labadii waa isku kay socotaa marka dowlada dhowr meelood haddii aan fadhiisino inaan alhidaaya ka furaan rabaa meesha la yihahdo madina munawar meeshaasna alhidaayana aan ummadda xujaayada aan ugu shaqeyno tii kalena ay socoto marka taas iyo maka iyo madina horta international diaspora waxaa muhiim usii ah ay sii furaysaa oo in official ah waxay wadataa transparent and legal wax oo la qaqarihayo maan ida wax loola dhudhuumo iyo ma jirto toos annaga waxaan la nahay dowladaha aan partnership la dhaqowna ilaahana waxaa keenay fahamkaas iyo ilaahana sii duqaa soo helay waxaan dhihi karaa haddana wixii soomaali kale ah amba ummad kastane way lasoo xiriiri karaan adoo abubakar amba aniga si aan meesha usii tilaabo qaado oon meel dheer usii gaarsiino marka hadii ula yidhaha ma ahan kaliya inaan $100 iyo 200 aan xawilno anaan kala xawilno lacagaha oo aan caadi ahayn inaan ummadaha u kala gudbino ayaa muuqan doonta insha allah xitaa lacagaha xawaaladaha ay xawilaan maadaama wadankan Swiss-ka xawaaladaha aysan ka sharciyeysnayn tiin ay tahay mid la ogolaaday oo xawilaysan iga Soomaaliya ada abubakar wuu la shaqeyn jiray xawaaladaha oo dhan oo bakaal haday tahay iyo xawaaladaha oo dhan oo la shaqeyn jiray 0.8 uu ka qaadi jiray way ogyihiin xawaaladaha Swiss degan oo dhan 0.8 kii xoogay lagu sii cariiriyay markaas odayga qarxayo hadda isfaafin oo ku jira asiga laakiin xawaaladaha oo dhan waa loo shaqeeyaa hadii ay waxooda ay sax yihiin aad baa umaasta waxaan rabaa barnaamijkeena nooga sheekaysid barnaamijka ah daawooyinka hadda intay kusii jeedaa inta xataa hadda abubakar wiigaana dowlahana waxaa soo baxaysa asaa idiin sheegi doona arrintaas xaaji abubakar waxyaabaha oo dhinaca diiwaangelinteeda iyo waxyaabaha meesha ayaa gaartay alhidaaya in inta laga furaayo gudoomiyaha raja idiin sheega oo inta ka diiwaangeliy taas waa run markiin aragnay baahida loo qabo arrintan maaragtay ilaahay ninkan gacantiisa u barakeeyey oo dad badan ku caafimaaday daawada iyo xaggiisa ayaa waxaan maaragtay isla fahanay in laga maarmaan tahay si loogu fududeeyo switzerlamaha iyo maaragtay dadka joogo soomaalida jihadiyada soomaaliya ay joogto Europe oo dhan inaan laga furo inta xafiiskiisii xataa ahaa dhinaca daaweynta
yaan ku fikirnay tiina waa gudbinay sanadii maaragtay hadda lasoo dhaafay waxaan u gudbinay maxaa la idhaahaa dowladda switzerka aan waxaan weydiinay wasaaradda caafimaadka ruqsi rasmi ah oo sharciyeysa in la keeno tii waxaana la weydiistay inaan keeno sambal mase cayin namuuno daawayaalkii oo dhan oo sheekh maxamuud oo asaga oo dadka ku daaweeyay dhanaan keenay waxaan u geynay maxaa la dhahaa wasaaradda caafimaadka marka swiss medic qola la yidhaah waaye inta ayadiia maaragtay waxay ku samaysay analysay ku samaysay daawadii maaragtay tijaabisay fiirisay baareen markii ka bacdina baaray ka bacdi waa run waa daawo fiican sidiiyaa lagu ogolaaday swiss medic ay ku ogolaatay inaan la siiyo ruqsigii rasmi ah saas daraadeed hadda sheekh maxamuud xataa wuxuu ka furi doonaa mar dhow dalkan switzerland ha noqoto magaaladan caasimada oo berna mase ha noqoto magaalayaalka kale sida genever iyo zurikh iyo basel waxaana maaragtay hadeer lagu wadaa fikrad ahaan sidaan isku afgaranay in laga furo maaragtay supermarketka salaama oo maaragtay leeyahay j in laga furo meel dhinac ah oo lagu gado arrintaas daawadaas yaa haddana qorsheynay biidni illaahi tacaala hadduu ilaahay raalli ka noqdana mar dhow jaaliyada waxay ku farxami doontaa ay ku istreexi doontaa in sheekh maxamuud daawadiisii iyo halka laga helayo wabilaahi tawfiiq aada ayaad umahadsantihiin ilaa ka labadiinaba waan idiin mahad celinaynaa waxaan rajeynaya inaan ku kulmi doono barnaamijyo fara badan waxaan barnaamijkan idinka soo gudbinaynaa magaalada bern dalka switzerland abukar muudeyna waxaan wareysi la yeelan doonaa insha allah waxuu naga ogolaaday inaan wareysi la yeelano laakiin wareysigaas wuxuuna sii doonaa mar dhow insha allah hadii la yiraahdo oo ku saabsan soomaaliya xilligii ay jirtay 64 barnaamijkan waxaan idinka soo gudbinaynaa sidaan horu sheegayba magaalada bern sidaas iyo nabadgelyo